muqdisho waa magaalo mugweyn waana caasimada Soomaaliya inaad fahanto macnaheedu maahan wax sahlan mararka qaar waxa maankaada ka daadegin sida xaalkeedu u marmeerayo ganacsada badan ayaa maal iyo muruq galiyay sidii ay u maamuli lahaayeen danaha bulshada aan majeerto oo aan maanka ka cadeeyay muhiimada warkayga magaalada muqdisho waxa maalmihii dambe ka taagnaa موجودة مرموتي أو كده وضياشة جديد كله يخانو بيل كي بجاج قوامد والبسكون موجنا إنه موجود عال برشدة كملايو لكن مهمة دو آيتها إن لقى هلو مراد كلقى اللي كريدة جديد كا مرنك يفرمو قول حيا لبضل إن عيا وجانت الصوب لعبتي مركي مصلحة مقدش اللجوء أركي موتوين كله يخانو بجاج كو يجو اسكو أركي إن أي مدن يهين الشعب كلاك لكن وضياشة بيل كقاركود أيا كو دودي إن مدبدا شقداني مامل كودو أي مسؤول كاين ونا أديك ين الشعب كمجالده isla markaana maagmaag ay wadaan dhinaca kale in kastoo dhaqaalaha loo adeegsanayo labada gaadiid ay isku mid ahayn haddana bulshada ayaa wada isticmaasho wadayaasha mootobajaajka ayaa dhankooda sheegaya in mudan yihiin in la maalgeliyo maadaama ay bulshada u fududeeyeen masaafada mareynada ee wadooyinka magaalada dhinaca kale waqtiga ay shaqeeyaan ayaa ah farqi kale oo u dhaxeeyo بيلك iyo bajaajka maadaama midkood ilaa habeenkii xilli dambe ay adeegsadeen shacabka beelka oo lagu xisaabtamo tirada kaabka saaran iyo talaabada dheeraadka bajaajka ayaa shaqo kale oo ku xiisagelinayso markaad si miisaan leh u milaysato labada dhinac hadalada ay isku adeegsanayaan iyo xilfaatanka xarakada ku dheehanta ee u dhaxeeyay xiskaagu waxa uu ku sheegay in la joogo xilligii ay xasil lahaayeen bulshada muqdisho in kastoo xilliyada qaar xaalkaas xakaarkiisu badan yahay dhowr mar aan adeegsaday labadooda waxa marqaati in ay jiraan isfahan waan ka taagan cida ay shacabka xiiseeyaan laakiin dhinac walba waxa uu arkaa inuu mudnaanta kuwaad uu bulshada uu yahay maxamed cilmi yarow waxa uu ka mid yahay wadayaasha gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaan biyalka mar aan kula kulmay isgoyska xamarweyne isagoo shaqadiisa ku jiro ayaa waxa uu sheegay cadaadiska xooggan ee ay kala kulmayaan wadayaasha bajaajka bajaajku ayada kaligeed tartamaysa oo magaalada bahaysata horta awalan dad waxa loo dhiibay tahriib loo diidan yahay dhalinyarada xaafadeeda loo dhiibay on darwaleen ahayn dhinacay ka soo galay dhinaca kale ka soo galay ayagiyo 4 iyo 5 ayaa mid kugu dhacay mid ku taabtay mid ku sigay mid bareeg ka qabatay iyo mid qof ku dhacay mid kaligeed gadoontay buu wadayihiin inta badan jidadkii waa la mari weyn midda kale 10,000 ay qaadayaan oo ala Soomaaliya ana ku raacay ilaa ceelasha 10,000 ana ku raacay waxa waaye $1 ay dadku qaadayaan ama $1 way fiican laakiin dad aan maamul lahayn on darawaleen ahayn on wax garad ahayn wada saameynteeda iyo dhibaatadeedu aad ay u badan yihiin dadkii waysan nacaynoo dadkii ilaaha badiyay laakiin intay maalintii ama la dhacdo ama ku jabta xisaabba ma laha waa mid ka mid ah dhalinyarada mootobajaajka waxa uu dhankiisu sheegayaa inuusna aaminsaneen jiritaanka wararka sheegaya in xilfaatan darawalada gaadiidka beelka ka dhaxeeyo waxaana uu sidoo kale uu sheegayaa in darawalada bajaajka qudhooda ay mararka qaar isku mid u shaqeeyeen oo haddaba qiimaha ay arkaan dadka ay ku qaadaan sartifi maasantiin aan hortooleeto ujeedka ah caasley iyo bajaajley rasaaqadooda ilaahay caasleena ilaahay waanu dhuftaan iyo waanu soo horjaraan iyo waxaasna maamul aan leenahay oo traafiga marka waxaan rabnaa walaaleen oo bawrada inaysan dhibaato lagu arkin aan ku hayna ayaga marka ayagana hunguriyahay annagana hunguriyana wixii wadada waa naga dhaxaysaa shacabka magaalada muqdisho ayaan weydiiyay aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan barartanka u dhaxeeyo labada dhinac iyo midka ay iyagu doorbidaan in ay adeegsadaan qaarkood ayaa waxa lagu farxay ku tilmaamay in ay tartan u galaan gaadiidka dadweynaha maadaama iyagu ay u fududeeyaan safarada dheer wanaanta markaan ka hadla xaqiiqda caasleyda iyo bayaadleyda dib ka dhaxayso waxa way caasilaha qof wax arkaya 2,000 oo arkaya oo qof maartay oo arkaya isbarkiima bareeg qabanaya bajaajleyda naftigooda waxa jira qaar mas'uuliyiin la ciyaal maartay qaar mas'uuliyiin oo ayagana maartay aan corona haynin ninka maartay baawurka soo yeelo ayagana ku horjaraan markaan maankayga u furay aragtida shacabka dhexwaraansaday xiisaha xasaasiga ee u dhaxay dhinacyada aan ka soo sheekay waxa ku soo baxayo oraada aan u dooray warbixinteeda oo ah
baraartanka u dhaxeeya BLka iyo bajaajka waa baraaraha bulshada. Sharmaarka Washington, Star TV, Muqdisho.